wiil yar oo 2 jir ayaa subaxnimadii Arbacadii waraaba uu ku cunay tuulada la yiraahdo Deerto oo ka tirsan degmada Gaarisa gobolka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya. Saalax Cabdi ayaa waxa uu hurday guri yar oo cooshado caws ka samaysan markii waraabuhu uu weeraray 9kii subaxnimo maalintii shalay. Labada waalida wiilka dhalay ayaa guriga joogin waqtigaasi. Aabaha ayaa xoolaha daajiraya halka hooyaduna biyo ay ka doontay meel guriga u jirta ilaa 5 kiiloomitir. Aamina Maxamed waxay sheegtay inay ka tagtay wiilkeeda hurda laakiin markii ay soo laabatay la kulantay isagoo meyd oo dhiigu ka qulqulayo. Yuusuf Cabdi oo qoyskani la darisa ayaa waxa uu sheegay inuu maqlay qaylada ilmaha yar laakiin markii halkaasi uu gaaray waraabuhu ka orday isla markaasina uu arkay wiilkoo la dilay. Cabdi Yuusuf ayaa sheegay in waraabahaasi ay raadiyeen oo markii dambena ay ku guuleysteen inay dilaan wiilka geeriyooday. waxa lagu aasay tuulada. weerarada xayawaanka duurjoogta ay ku hayaan dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari wadanka Kenya ayaa bariyahani dambe kor u kacay kadib markii abaar ay ku dhufteen dhulkaasi. barasaabka gobolka Gaarisa Xasan Qorane ayaa bishii Oktoobar waxa uu bilaabay mashruuc xayawaanka duurjoogta lagu waraabinayo gaar ahaan dhulka ay abaartu sida weyn u saameysay.